إلهو تشدفر halkii baan taaganay kowdii of course wasiirku hadii uu Soomaaliland u dhashay iyo hadii uu imikana maanta wasiirba ka yahay mas'uul ka yahay waxba dhibaato ma jirto maxaan ku dhahay isku dad un baynu either way opinion ku furin qofku meesha uu raacayo wuxuu qabsanayo iyo taa iskuma xukumi karo marka runtii waliba wasiirkii dastuurka mar hadduu unity la socdo horta waxaan oran lahaa unity ka keen xamar oo Soomaaliya ka keen marka u horeysa as a principle haddii aad raacayso runta unity-ga ka dhalaaliyo marka anaga noo kaalay laakiin adoon ka dhalaalin xamarba inaad annagana tidhaaho ana ha ii dictate garaynina ha ii samaynina adeer xaq maaho dawlad xukuumad baa jirta professor wasiir dastuurka tahay xukuumaddu cidii ay egmato oo ay tiraa way noo hadlayaan xaq bay u leeyihiin Soomaad gar laakiin waxaan ku sheegayaa runta marka aynaan ka tagin marka aynu isku lisayno aynu isku xumaynayno ayaa dad walaalaha la iska hor keenaa marka arrinka aniga ku sheegay taariikhda intii wada hadalladu socdeen maaha tii wasiirku sheegay ka horeysay uu sheegayo la wada hadalku waa run wuu socday laakiin tan official aan sheegaya intii uu socday rule baa jiray inaan Somaliland dad ka socdaa anay Somaliland la doodin Istanbul baa ugu horeysay markii la keenay oo shan baa la keenay shan Somaliland ka socda marka wax la xumaynayo sidii kal horeba dhacday marka doodu ay socotee la isku hor keenay la isku dhufanayo ma wanaagsanaan waxaan oran lahaa mustaqbalka hadii la doonayoba in Somaliland different opinions ka la eego kuwa unity-ga socdaha loo sameeyo forum laakiin isku dhufa iyagu isku lis adeer waxba ma keenayso wanaag ma keenayso marka horta taasi waa mid the last point waxa weeye war way noo wada dan inaynu xal helno aniga waxay ila tahay inaan isku celcelinnuun intii hore kolba dhici jirtay formulas cusub aynu doono aynu mar xal wada raadin